maantana aakhiri adduun midun baynu kala dhacaynaa ku dhac diyaaradeed oo halisa dhibaatada ayaa qaaday mas'uuliyadda labaatan hadday isku dhacayaan dawladda Soomaaliya way wadaysaa sibiiliya muuminiin bay ku jirtaa 60 sanadood bay darayay nagu haysteen oo marna madfacina la dhacayeen marna siyaasiyiin inoo horjoogay qalabkani way u yaalay softwareadu ma lagu shubay horta waa arrin mar hore inay dhacdo loo baahnaa Soomaalidu beenta ma mahmaado especially Somaliland laakiin beenta way sheegtaa waxay tiraahdaa ninka lowga ka guba xagasha laga guba haba laabi weyda lugtooy Soomaaliya horta waa tiyadu dadka soo doonatay Italian Soomaaliya la yiraahdo iyo British Somaliland baa la yiraahdaa mala 60 sanadood bay darayay nagu haysteen oo marna madfacina la dhacayeen marna siyaasiyiin inoo horjoogay waan ku faraxsanahay anigu maanta sida xukuumaddu yeeshay ee ah inay ninkii lowga ka gubay xagasha ka gubto waliba wadamo kale oo aynu darisnahayna in la khalkhaliyo oo dabada u lulaya kuwa ayaan aaminsanahay inay dawladdu samayso way garanaysaa kuwaan la hadlayo waan ku kalsoonahay ninka ku deyn waaya inaad technology-gu maanta adduunyada isaga xukumo qalabkani way u yaalay softwareadu ma lagu shubay intaaba waa la ixtiraamay oo wada hadal iyo waxaas la ixtiraamay waan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay mar hore inaad sidan yeeshay maalin walbana sidaynu inagu ixtiraamka u samaynaynay nimaan ixtiraamba mudnayn inaynu xaramkii ilaahay xitaa isu keen hortaagay anigu waxyaabahan aad uga xanaaqaa waxa weeyaan marka la yidhaa shacbiga Soomaaliland waxay ku dhoofayaan baasaboor Soomaaliya leedahay iyo nambarkii Soomaaliland lagu tagay ayay wadaadda ka soo qaateen oo suuqa ku iibinayaan meesha adduunka ugu xaj qaalisan bay ahayd Soomaaliland markaasaa iyadoo laa ilaaha illa allah maxamedur rasuulullah ku taalo baasaboorkeeda ayaa waxa lagu xukumayay mid ay calaamadii shaytaanku ku taalo qaatala laha waxaan u malaynayaa inay maanta waqtigii loo baahnaa xilli waliba raggiisu leeyahay mar hore idin soo samayno maantana aakhiri adduun midun baynu kala dhacaynaa su'aal diyaaradda ma doon ku weydiiyo haddii imika murankani keenay isku dhac diyaaradeed oo halisa dhibaatada ayaa qaaday mas'uuliyadda labaatan hadday isku dhacayaan dawladda Soomaaliya way wadaysaa sibiiliya muuminiin bay ku jirtaa yaa qaaday caqab xumada iyo dhibaatada kaawa qaadaysa kaawa waa tii ogeyd ee fadhiday heshiiskii labada dawladood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ku heshiiyeen qalabka halka la dhigayna way ogeyd dambiga ugu weyn iyo wixii halka ka dhacay kaawa qaadaysa yar wahay kaayagu isbahays ma sameeyay soodigi gooni ku shiray ee leeyahay aqlabiyadii oo golaha gurtida sharaya oo qada sharaf loo sameeyay anigu ma maqal aniga miyaa la sameeyay ana maanta inta joogto ugu weyn